waxaa maanta magaalada Jowhar soo gaaray sihayaha wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalk Soomaaliya Xamza Saciid Xamza waxaana garoonka diyaaradaha gobolka Shabeellaha Dhexe ku soo dhaweeyay wasiirka gargaarka Hirshabeelle. ujeedada imaatinka wasiirka ayaa ah in qalab xafiisad uu ku wareejiyo wasaaradda gargaarka Hirshabeelle agabkaasi oo looga howlgali doono xarunta ka digista iswadareedka oo ah xarun lagala socon doono halisyada sida meel lagala socdo heerka cimilada, heerka ay marayaan biyaha webiga, abaaraha, la socodka dabaylaha iyo dhammaan halisyada isku bedeli kara masiibooyinka ka hor intaysan dhicin. wasiirka wasaaradda gargaarka Hirshabeelle Cabdimahad Qorgab ayaa u mahadceliyay dhigiisa wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalk Soomaaliya oo maanta agabkan ku wareejiyay. aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno wasiirka gargaarka maareynta masiibooyinka dawladda federaalka Soomaaliya mudane wasiir Xamza Saciid Xamza waliba asaga iyo wafdi ballaaran la socday wasiirka oo waliba ujeedka iyo hadafkiisu uu ahaa in ayna soo gaarsiiyaan qalab loogu talagalay ka digista maxaa la yiraahdaa early warning-ka ama halis wadareedka la yiraahdo asagoo noo wado. waxaan leeyahay mudane wasiir waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay wasaaradana sida ay wasaaradaha humanitarianka ee maamul goboleedyada ay u garab taagan tahana waan kaaga mahad celinaynaa. dhinaca kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalk Soomaaliya Xamza Saciid Xamza ayaa sheegay in qalabkan uu wax badan ka tari doono xarunta magaalada Jowhar. bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa farxad weyn ah maanta inaan soo gaaro caasimadda Hirshabeelle magaalada Jowhar. waxaan u mahad celinayaa wasiirka gargaarka maareynta masiibooyinka iyo tiimkiisa inoo soo dhaweeyeen. runta hadafka safarkan waa mashruuc aan wadnay xaruntii laga hirgeliyay magaalada Muqdisho ee ka digista halis wadareedka ah inaan gaarsiino goboladoo dhan. waxaan hore u gaarsiinay gobolka stateka Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug oo hadda aan ka soconno. maantana waxaan joognaa caasimadda Hirshabeelle. waxaan filayaa qalabka in wax weyn u tari doono magaalada Jowhar waa meelaha ugu nugulsan markay fatahaadaha ka dhacaan inuu ayagana shaqaalahoodana waxaan rajeynayaa sida ugu dhaqsi badan inaan xamar aan keeno oo tababar fiican loo furo si ay ugu faa'iidaystaan technology-gan cusub ah. agabkan wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalk Soomaaliya ee soo gaarsiisay dhigeeda wasaaradda gargaarka Hirshabeelle ayaa ah mid si toos ah kaga howlgali doona magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waana agab la gaarsiin dhammaan maamul goboleedyada dalka. Ibrahim Cali Nuur, TV-ga Universal, garoonka diyaaradaha gobolka Shabeellaha Dhexe.